15 bishii Oktoobar sanadkii 1969 ayaa la dilay madaxweynihii Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaake isagoo socdaal ku marayay magaalada Laascaanood waxaana Allah u naxariistay madaxweynaha la aasay 20 bishii Oktoobar isla habeenkii xigay ayaa intaan waagu bariyin ay ciidamadu la wareegeen taladii dalka Soomaaliya 1974 oo sanadkii afraad ee taliska militariga uu xukunka qabsaday waxaan la weydiiyay Maxamed Siyaad Barre waxyaaladii wadanka uu qabtay wuxuuna ku jawaabay sida tan hadal kuma koobi karaan isleeyahay waxyaalaha waaweyn oo gacanka uu qabtay balse waxaan uu haddaan mid ka taabto aan isleeyahay waxa ugu weyn waxay noqon karaan in dadka Soomaalida ah oo awalto hurday inuu hurdada ka toosay dadka Soomaalida oo awalto ogeyn iyaga dad ahaan awoodooda iyo dalkooda khayraadka ku jira iyo iyaga naftooda waxa ay isu yihiin inay maanta garteen haddaan midwadu ka soo tilmaamana مثلا waxaan نورو garan karaya Soomaalidu in ay xagga saxaafada ama xagga tacliinta aqoonta inay ku xirnaayeen ajnabi oo dawlado kale to afkood iyo tacliintooda ay ku xirnaayeen laakiin markii Soomaaliga la hirgeliyay degmadiisa in ay u noqdeen dad ahaantood Soomaali cusub ayaa dhalatay ayaa markaasi la sheegay dadkana waxay u hanweynaayeen waxyeelada dalka iyo dadkooda ay qaban karaan guulahaasi waxay dhaliyeen suugaan iyo heesooyin dadka qaarkii ay ku qaadaan guulwada siyaad waxaana ka mid ah heesahaasi midatan